toddoba sano ku rafaadhayay waa 25 jir waa xilligii maanta loo baxsan lahaa waa xilligii uu xoojin lahaa aabihiis kaligiisu ku yahay wiil kale ma qabo gabar kale ma lahan waa 55 jir waxaan u baahanahay wiilkaas daawadiisi iyo la tacaalkiisi iyo nolol maalmeedkiisa hatta aan xiriir iiga jira oon maxay aheeday aan waxaan hayo oon maxay aheeday hadda aan u hayo oon maxay aheeday hadda daawo iska dhaafay qutuliyoonkii aan ka fikiraa daawadiisa goormaan soo qabtaa la tacaalkiisa goormaan soo qabtaa goormaan maxay aheeday meel geeya waxaan u baahan in wax la igala qabto waxaan haatan ku sugannahay xaafadda Axmed Warsame Maxamed Keeti waa 25 jirkii jaamiciga ahaa oo ka dhex muuqday dadka caasimada balse xanuun dhanka maskaxda ah dhulyaal la ahaa ku dhawaad 7 sano oo xiriir ah dhibaatooyin dhaqaale oo dhanka qoyska ayaa sabab u noqotay in uusan helin daryeel caafimaad iyo cid si rasmi ah uga taageerta baxnaano caafimaad si uu uga bogsado nabarkan ka haleelay maskaxda telefishinka Somali News ayaa ku booqday hooygooda qoyskan la tacaalaya xaaladda wiilkooda kani waa aabaha dhalay oo lagu magacaabo Warsame waxa uuna si dareen leh uga sheekeeyay marxaladda uu ku sugan yahay wiilkiisa Axmed Warsame Maxamed Geedi uu iga xanuunsan yahay 7 sano meel aan geeyay meel quraan saar waa geeyay meel maxaan ku qoray computer waa geeyay waxa waaye ninkaas wax alla waxaan hantahay waan ku beelay waxaan hadda u hay marka waxa la yiri dhakhtar weyn oo maskaxda oo dhimirka maskaxdiisa inay wax yar sakatay baan u malaynayaa lacag aan maxaan ku foqol aqli hali yiri lacag ma hayo wax alla waxaan u hayo male ninkaas waxaan doonayaa muslimiinta meel kasta oo joogan hay'adaha wax bixiyo deeqda bixiyo ninkaas inay soo caawiyaan aad baan ugu rafaaday keligii buu ugu yahay jaamacadu ka baxay maxaan ku raayay Yaman meeshaas jaamacadu maxaan ku soo dhigtay waa nin maxaan ku shaqaysan jiray waa nin maxaan ku raayay lacag uu soo shaqay aan cunay asagii hooyadiisna waatan ilmo xataa la soo koriyay aniga ilaa joogin waxa waay wiilkaas waa meeshuu rag ugu haweenay waxaan doonayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan in gaareed lagu feeriyo oo muslimiinta ay garab qabtaan oo waxa ninkaas ila daaweeyaan iyo hay'adaha deeqda bixiyo wax allaal waxaan haystaa malahan noloshiisa maxaan ku raacay dabir kara asaan maxaan ku raacay 24 saac gacanta ku hayo noloshiisa xataa ma dabir kara saan ku noolahay kaamkaasaan deganahay kaam baan deganahay wax allaal waxaan hayo oo Ilaahay abuurtay noloshiisa xataa ma dabir kara asagana maxaa 2 sano oo ku bilood buu iga maqlay intuu mar iga dhumo waxaan u dirayaa baaq inay ninkaas daawadiisa iyo wax alla wixii dadaal ay ila soo mari karaan muslimiinta ayaan u bandhigay in macnaha wax ila qabtaan duruuf aan caadi ahayn baa ay haysta wax alla waxaan ku daaweeyay ma hayo muslimiinta iyo hay'adaha samafalka labada waxaan ku codsanayaa in maxaan ku rahay ninkaas si gaar ahaan la feeriyo oo maxaan ku rahay garabto leel daaweey dhanka kale hooyo Xabiiba oo ah Axmed hooyadii ayaa iyadana ka sheekaynaysa xaaladda wiilkeeda bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah hooyo iska rafaadsan oo iska duruufaysan oo kaamka barakac degan oo wiil iga xanuunsan yahay wiilkii oo xanuunkiisa igu muddo dheeraaday ilaa 7 sano uu iga xanuunsan yahay 7 sano iga xanuunsan yahay waxa laga hayaa maskaxda maxay aheeday xoogaa dhimir waaliyad ahaana loo qabtay maxay aheeday wiilkii aad baan ugu rafaaday waan ku qarash beelay kunkin helaba quraan saar baan la aadaa daawooyin baan u soo gadaa hadda waan iska tabar dhigay tawracaad ma haysto hay'ada wax iguma siiyaan ehelkii meesha joogan asaga iska duruufaysan wax aan u hayo male waxaan rabaa in maxay hay'adaha samafalka ah maxay aheeday deeq bixiyaasha wixii oo maxay aheeday xuquuqul insaanka maxay aheeday qaabilsan waxaan rabaa in wiilkaas daawooyinkiisi la tacaalkiisi wax la igala qabto maxay aheeday daawooyin badan hadda maxay aheeday ayaa ku kaciyaa baa la yiri maskaxda computer uu baahan yahay jirkaas oo dhan maxaa in la baaro u baahan yahay daawooyin badan oo u baahan yahay waxaan rabaa in maxay aheeday wax la igala qabto xanuunkiisi 7 sano ku rafaadhayay waa 25 jir waa xilligii maanta loo baxsan lahaa waa xilligii uu xoojin lahaa aabihiis kaligiisu ku yahay wiil kale ma qabo gabar kale ma lahan
waa 55 jir waxaan u baahanahay wiilkaas daawadiisi iyo la tacaalkiisi iyo nolol maalmeedkiisa hatta aan cariiri iga jira oon maxay aheeday aan waxaan hayo oon maxay aheeday hadda aan u hayo oon maxay aheeday hadda daawi iska dhaafay qutulyoonkii aan ka fikiraa daawadiisa goormaan soo qabtaa la tacaalkiisa goormaan soo qabtaa goormaan maxay aheeday meel geeya waxaan u baahan in wax la igala qabto walaalayaasha muslimiinta waxaan u baahanahay qofka maxay aheeday wax nagu soo taabacayo waxaan u baahanahay nagu macnaha oo wax nagala qabanayo wiilkaas arrimihiisa waxaan u baahanahay in ay nagala soo xiriiraan lambaradan lambarka furihiisa waa 223 17 73 lambarka kale waxa waaye furaha 8 konton 46 92 ugu dambeyntii qoyskan ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka muxsiniinta ka codsaday in ay ka caawiyaan in wiilkoodu Axmed uu helo baxnaano caafimaad. Anfac Abdulqaadir Siyaad, Som News TV, Muqdisho.